shirarkii bilowgii 1990 ka dhacay magaalooyinka Berbera iyo Burco halkaas oo la isugu geynayay beelaha reer Somaliland ee walaalaha ahaa ee uu hore isugu hor keenay nidaamkii hore ee Siyaad Barre sanadii 1993 waxa uu qayb libaax masiilayn ka soo qayb qaatay isu soo dhawaanshaha beelaha taageersana SNM oo xilligaasi qaarkood xurfi dhex martay sidoo kalena wuxuu ka shaqeeyay sanadihii 1994 ilaa 1996 dib u heshiisiintii iyo soo afjaridii colaadihii sokeeye أحمد محمود ديراك البربرجي أرجع المكان يتاي يقرأ يدين كور يتبني قول ما أنا أستر أن ما يطلع قول ما أنا أستر ماذا حيوم ما تقول جاي قرار يستر ما أنا أقول ما تقدر بربرجي إستقرأ يقوم إستقرأ أغنيه كوياني إستقرأ ذلك المفرد وحاولوا بدون المسكر ما المسكرين يقولون مثلا السورة يرجع أمود بريتها كيف كسر عن كسر وقمن والله أنا من المكتوبات فيها يا أنا نسورة فلان وغيره وجهه يقلب بغيره وفدا ويهارين كما كل ولاني لك عن بريت Somaliland ee soo wada galay halgankii SNM mudane Siiraanyo waxa uu hormood ka ahaa shirkii Caynaan ee lagu qabtay magaalada Caynaba shirkaas oo uu bundig u ahaa soo afjaridii khilaafkii siyaasadeed ee dhex maray beelaha Somaliland waxaanu door fiican ka ciyaaray shirarkii ka dhacay sanadihii 1996 Duruqsi iyo Beer mudane Axmed Siiraanyo waxa uu 1997 markii cigaal Allah u naxariistay dib loo soo doortay wuxuu ka mid ahaa golaha wasiirada waxaanu soo qabtay xilalka wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta waqtigii uu hayay wasaaradda maaliyadda oo uu u leeyahay waayo aragnimo badan waxa uu sugay oo uu caadi ka dhigay shilinkii Somaliland oo uu ku jiray qiimada waqtigaasi waxa kale oo wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda u dejiyay qorshe miisaaman oo ay ku hawlgalaan mudane Siiraanyo intii uu hayay wasaaradda qorsheynta qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sameeyay talooyin ballaaran oo wax ku ool ah waxaanu sameeyay qaab iyo nidaam ay ku shaqeeyaan dawladda dhexe iyo ururada caawimada baxsha ee wadanka joogay waqtigaasi waxaana hirgalay mashaariic intii uu ahaa isuduwaha hay'adaha caawimada baxsha waxaana jirtay in iscasilaadiisii waqtigaasi aanay ku farxin ururada samafalka oo uu arkayay inuu yahay siyaasi ballaaran oo aragti dheer oo lala shaqeyn karo waxa kale oo iyana iscasilaadaasi walaac ka muujiyay wadamada jiiraanka ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD oo ay qaarkood xiriir wanaagsan oo qoto dheer ay la lahaayeen mudane Siiraanyo waxa kale oo laga ixtiraama wadamada reer galbeedka waxaana uu xiriir dawlad leeyahay wadamada Yurub midow Mareykanka iyo Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa sanadku markii uu ahaa 2001 oo ay dalka ka taagneed khilaaf siyaasadeed oo baan oo ku salaysan habka loo qaybinayo doorashada ka dhacaysa Somaliland mudane Siiraanyo wuxuu u tafaxaytay sidii uu caadada ahayd in uu dhexdhexaadiyo labadii dhinac ee markaasi xurgufta uu ka dhaxaysay oo kala ahaa xukuumadii iyo mucaaradkii xilligaasi mudane Siiraanyo inkasta aanu ku guuleysan inuu heshiisiyo labada dhinac wuxuu ku guuleystay inuu qaboojiyo oo uu qanciyo labadii dhinac ee ishayay waqtigaasi taasoo horseeday inaan labadii dhinac ee ishayay ayna ku qancin waxaan dani ugu jirin qarankan Jamhuuriyadda Somaliland mudane Siiraanyo isaga oo dhiirigelinaya hanaan socodka horumarka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu bishii May 2002 aasaasay xisbiga nabadda midnimada iyo horumarka ee Kulmiye xisbiga Kulmiye himiladiisu waa inuu dhiso dawlad kooban oo tayo leh oo hanata talada dalka si ay bulshadu u hesho daryeelka ay u baahan yihiin dalkuna u gaaro horumarka la hiigsanayo ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada sidaan la socono Kulmiye waxa uu ka mid yahay saddexda xisbi oo qaran
waxaanu guul ballaaran ka soo hooyey san hore u soo sheegnay saddexdii doorasho ee u dambeeyey doorashadii deegaanka iyo tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka. waxaana shacbiga badankiisu aaminsan yahay in kulmiye ku guulaystay doorashadii dalka ka dhacday, laakiin dowladdu waxay isdhaafisay iyadoo adeegsanaysa haybadii, awooddii iyo hantidii qaranka ay afduubtay natiijadii doorashada oo si aan xaq ahayn loogu dhawaaqay in xisbiga udub ku guulaystay doorashadii. inkastoo xisbiga kulmiye caddeeyey inaanu isagu doorashada ku guulaysan, mudane Siinaayo waxa uu markii dambe isagoo u tudhaya oo dhowraya danta qaranka uu ka tanaasulay mowqifkii ahaa in uu isagu ku guulaystay doorashada madaxweynaha. mudane Siinaayo oo loo arko nimaan jeclayn inuu isku dhajiyo xukunka, wuxuu mansabkii u sarreeyey ee markaasi uu ku guulaystay madaxweynenimada jamhuuriyadda Somaliland uu ka doorbiday xasiloonida iyo nabadgelyada dadkiisa iyo dalkiisa, waxaana kaga dhaweeyey hadalkii uu hore ugu yidhi intii muranku natiijada doorashadu socotay ee ahaa Somaliland cid kastaba aniga uga leexa jecel badan, dagaal iyo xasilooni darrana kama dhacayso. haddaba daawadayaal, halkan waxaan si kooban ugu sheegi doonaa cidda ama shakhsiyadda naf ahaan uu yahay Siinaayo ama uu ku sifaysan yahay. mudane Siinaayo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin daacad ah oo wakhtigiisa u lumiyey inuu u adeego dadkiisa iyo dalkiisaba. mudane Siinaayo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aamin ah oo loogu iman karo ammaanada loo dhiibo, sidoo kalena howlkar ah oo ka soo dhalaala xilka loo dhiibo. mudane Siinaayo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin degan oo aan degdegin. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay siyaasi xeelad dheer oo aragti fog leh. mudane Siinaayo waxaa la yidhaahdaa waa nin dad jecel oo ummaddu aanay u kala socnayn. mudane Siinaayo waa nin hadalka baaliqi ku ah oo dadka ka dhaadhicin kara fikradiisa, oo hadal ku qancin kara dadka taageersan iyo kuwa dhaliilsanba. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin jecel midnimada iyo wadajirka ummadda. ugu dambaynna waxaa lagu tilmaamaa in mudane Siinaayo yahay nin nabad jecel, waxaana la yidhaahdaa waa tabliiqiga nabadda Somaliland. waxaanan odhan karnaa waa siyaasigii ugu horreeyey ee Afrikaan ah oo intuu mansabka ugu sarreeya ee shakhsi aadamihii ifka ka qabto ku guulaysto madaxweyne qaran, haddana faraha ka qaada isagoo doorbidaya deganaanshaha iyo xasiloonida dalkiisa. mudane Siinaayo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay qof shaqadiisa u daacad ah, taasoo uu noqday siyaasiga Soomaaliyeed ee uu xil u qabtay aan laga qaadin weligii oo aan laga wareejin isagoo iska casila mooyaane. waxaana xaqiiq ah in uu mudane Siinaayo dadkiisa uga tegi doono dhaxal la taaban karo oo ay xusi doonto taariikhda soo jireenka Somaliland insha Allah. ugu dambayn waxaan odhan karnaa mudane Siinaayo waa haliyeyga Somaliland ee qaranka ka saari kara waqtigan kala guurka ee laga guurayo qaabkii beelaha loona hayaamayo habka nidaamka dawliga ee ku dhisan nidaamka xisaabta badan.